السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saxaabay meel kastood naga daawaneysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan ku talagalnay waa barnaamijkeennii labaad waa barnaamijkii galabnimo maanta waa jimce mar kale waxaan idin leeyahay jimca mubaarak taariikhdu waa 17 bisha luulyo sanadka 2026 barnaamijkeena gabi ahaantii waxaynu ku soo qaadanaynaa dagaalka aadka u kulul ee u dhexmaraya Mareykanka iyo Iran saacadihii la soo dhaafay wixii dhacay Iran oo sheegtay inay daakum ka dhigtay saldhigyada dhowr dal oo Carbeed uu ku lahaa Mareykanka sida Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Urdun, Suuriya haddaba xaalka Mareykanka waa loo yaabaa la leeyahay iyadoo Mareykankana uu sheegay inuu isaguna duqeymo culus ka fuliyay meelo kala duwan maraakiib qaarkood loo malaynayo in xuutigu ay qabsadeen iyo qaar kale oo la sheegay in weerar lagu qaaday badda cas iyo dhankan iyo Hormuz xaaladda cirka ay isku sii shareeraysaa haddaba wararkaas ayaynu ku faahfaahinaynaa barnaamijkeena labaad intaanu ku jirnana wixii akhbaarada ee soo kordha waan idin la socodsiin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa jimco wanaagsan asxaabay taariikhdu waa 17 bisha 7 2026 barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe iyo dagaalka culus ee halka ka socda haddaba maantaydii hore waxaynu ka sheekeynay Mareykanka inuu buundooyin burburiyay sidoo kale uu burburiyay goobaha tareenada waxaan idin nimanka Iiraaniyiinta ah nimankaas waxa laga sugayaa jawaabta ay sheegeen inay ka bixin doonaan haddaba wararkoodiya iska soo daba dhacay had ilaa Suuriya saldhig ku yaala meel la daayay male saldhigyadii Mareykanka oo dhan waa wada gubanayaan lagu leeyahay marka xaalku halkaas uu maraya haddaba mid ayaanu sida Al Jazeera ay u sharaxayso aan idin kugu soo gudbin doonaa waxaanu ku bilaabaynaa maadaama qaybtii hore saakay barnaamijkaanu ku soo qaadanay Mareykanka oo isagu markaa waxyaabihii uu garaacay markan waxa iska leh barnaamijka ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba marka aan idin tuso Al Jazeera waxay ku bilaabaysaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo kuwa shidaalka siiya diyaaradaha marka ay dagaalamayaan Urdun ayaana ku baabi'inay ayay yiraahdeen waxaan isticmaalnay sawaariiq iyo diyaaradaha droniska ah ayaynu ku garaacnay diyaaradahaas warkan marka waa khabar weyn ciidanka ilaalada kacaanka waxay leeyihiin muqaatilaat Ameerikiya macnaha diyaaradaha dagaalka waaye ma aha kuwii droniska ma aha kuwii dagaalka iyagoo meel iska yaala oo maartay baarkiman ayaan u tagnay oo nagta ka saarnay oo fiirsada warku waa saas waxaan kaloo garaacnay leeyihiin diyaaradihii kale waaweynaa ee booyadaha ahaa ee iyaguna shidaalka hawada ku siinay diyaaradaha iyaguna meesha yaala saldhiga u tagnay halkaas daakum kaga dhignay waxaanu ku garaacnay musayyaraad diyaarada dronisa iyo sawaariiq gantaala ku garaacnay warkan waa warka culus ee hadda ay maartay isdaba yaala wararka ciidanka ilaalada kacaanka Iran waa isdaba yaala markan waa idin sheegay ayaga loo feesteenaya barnaamijkan saakay Mareykanka loo feesteenay buunda jijibiye kana jijibiye hadda marka waa nimankan haddaba warka labaad ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran Al Jazeera waxay leedahay waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen oo ay dhulka la simeen raadaaradii Mareykanka ee ku rakibnaa dalka Oman waxay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran hanaanka raadaarada lagula socdo dhaqdhaqaaqa badda ee Mareykanku uu isticmaalayay ee ugu rakibnaa saldanada Oman in ay dhulka dhigeen oo ay baabi'iyeen dhanka kale waxay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran in markaa iyagu ay gacanta ku hayaan ciidamadooda badda dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda marinbiyoodka Hormuz waa point kale waa qodob kale raadaaradii Mareykanka uu badda kala socday qayb kamida oo Oman ku rakibnayd ayaa iyaduna halkaan lagu qararamsaday leeyahay waa qaybta labaad baash waa wararku isku soo daba xigaan waan idin hayaa haddaba
qaybta kale warka kale ee saddexaad ee soo kordhay adaan idin la wadaago waa laba war oo isa saaran oo Al Jazeera ay qorayso qaybta koobaad waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen ciidamadoodu inay gacanta ku hayaan marin biyoodka Hormuz annaga ayaa wali gacanta ku haynay leeyihiin marin biyoodka Hormuz mana jirto wax ka gudbi kara dhibic nafto iyo gaasa oo halka mari karta ma jirto inta Mareykanku weerarada gardarrada uu nagu hayo wax gudbisan kara shidaal iyo gaas oo halka mari kara ma jiro warka labaad ee ku xiga isla Al Jazeera waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen saldhigga liiraado Al-Tanaf ee ku yaala Suuriya ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay halkaasi weerar ku qaadeen saldhigga Al-Tanaf oo markaa hawlgal ciidamada Mareykanku ay halka ay deganaayeen Al-Tanaf marka wuxuu ku yaalaa koonfurta Suuriya marka niman Suuriya degan Mareykan oo islahaaba adigu xisaabta kuma jirtaan dawladahan kala nagta laga saaraya ayaa Al-Tanaf inta loogu tagaa lagu leeyahay ayaa nagta laga saaray iyagana sheekaas iyaduna waxay ka mid tahay sheekooyinka waalida ee soo kordhay oo nimanka ilaalada kacaanka Iiraan niman caadi ma imtixaan waay marka waxay leeyahay marka saakayna waa ogeydeen Kuwait iyo Qatar iyo Bahrain nagta ka saareen marka meeqa wadan waay saldhigyadiisa waa Kuwait waa Bahrain waa Qatar waa Oman waa Urdun waa Suuriya waa 6 wadan oo Carbeed saldhigyadii uu ku lahaa ayaa odagii asaguna dukum daakum laga dhigay asaguna wixii uu ridi karo riday asagana ciidamadiisa meesha joogaan la qaramsaday diyaarada meel u yaalo u baarkiman iyo wixii oo dhan waa loo tagay raadaaradii badda uu kala socday meesha ballis dhaafay meeshaan Iiraan isku taabtay nabadan u seexana ma jirtaa lagu leeyahay ma jirto sheekadaas meeshaas kama soconaysa lagu leeyahay waayay haddaba marka qaybta kale ee warka waxa soo saaray war Pakistan iyo Shiina waxay leeyihiin cid laga adkaanay male Mareykan lagu dhaga hadlaa waxa leeyahay gabgabtan jooji adeer kama adkaan kartid nimankan Iiraaniyiinta kama adkaan kartid wada hadalkii ha lagu soo laabtay leeyahay waa Shiinaha iyo Pakistan haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Shiinaha iyo Pakistan waxay ugu baaqeen Washington iyo Tehran inay dib u bilaabaan wada xaajoodkii u dhaxeeyay haddaba Shiinaha iyo Pakistan waxay ugu baaqeen Mareykanka iyo Iiraan inay wada hadaladooda dib u bilaabaan oo marka arinta lagu xalliyo diblomaasiyad dagaalkan militariga ahna la joojiyo labada dhinac wasaaradaha arrimaha dibadda Shiinaha iyo Pakistan ayaa warkan soo saaray kadib markii ay kulmeen wasiirada arrimaha dibadda Shiinaha ninka la yiraahdo Wang Bi iyo dhigiisa dalka Pakistan Ishaq Dar ninka la yiraahdo waxaana kulanka uu ka dhacay dalka Shiinaha magaalada la yiraahdo Shanghai way marka waxay leeyihiin warnimayaha ma la kala adkaanay meeshan Iiraan kama adkaanaysid marka meesha hal kala joogo Iiraan waxay leedahay wallahi ka tahay dhibic ay tiri dhibic u fiirso goojada dhibicdeeda way erayga ay isticmaaleen oo gaas iyo nafta baalki iyo shidaal oo maraya Hormuz ma jirin adduunku waa dhamaatay marka wax shidaal oo adduunyada gaaray marka bale Iiraan waxay leedahay hal xabba ma gudbay anagana gacanta ku hayno meesha ninka soo weerartay saldhigyadiisana nagta ku hayna meeshana waa noo xaratay marka xaalku halkaas uu mar waaye qodobada kale ee muhiimka ah ee saaran warbaahinta waa laba shil oo ka kala dhacay Hormuz iyo Badacas yaa samay kara Yemen agteeda yaa hawlgalka samay kara Xuutiga meeshaas ayaga loo malaynaya inkastoo ay wali sheegan oo laakiin afyeenkooda hadli doono shaqadii bilaabeen goorba halkana waxba ka dhacay labada arinba marka aan idin tuso waxa laga qoray haddaba warka koobaad waxa la leeyahay hay-adda dhanka badaha u qaabilsan Britain ayaa sheegtay markab shidaal oo marayay meel ku dhow saldanada Oman inuu la kulmay weerar haddaba weerarkan ayaa la sheegay inuu ahaa gantaal aan la garanayn cidda soo riday waxaana uu ku habsaday markabkaas
weerarkan waxaa la sheegay inuu khasaaray u geystay markabka laakiin shaqaalaha ay nabad qabaan oo laga badbaadiyey kaas marka waa hal war waana la ogyahay cidda ku dhufatay iiraanaba leh hal dhibic oo meesha areada soo mari kara shidaal iyo ma jireen tiri taas waa la fahmay qodobka kale ee muhiimka ah isagana waa shil ka dhacay Yaman agteed Mukalla agteeda meel ah haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray qayladaan ayaa ka soo yeertaa la leeyahay dhanka badda Koonfureed ee Mukalla dalka Yaman kadib markii la sheegay hay'adda hawlgallada ganacsiga badda ee Britain ay heshay xog ku saabsan in halka uu weerar ka dhacay meel 65 mayl u jirta badda Koonfureed ee Mukalla ee dalka Yaman weerarkan waxaa la sheegay kooxo hubaysan inay xoog ku fuuleen markab halka marayay oo ay xoog ku qabsadeen dhanka bari ee Khaliij Cadan markabkii xoogaaba lagu koray kan waaba labatayba cid wadatay iyo cid kale ay wali waa soo bixi doontaa waxa soo dhan marka hadday dhacayaan waa tii shalay ballanta ay ku galeen nimankii haddii kaabayaasheena dhaqaalaha la soo weeraro xagga ka bilaaba baabal mandab kawsi wax isu gudbaa mala adduunka oo dhan saas madaxa iskula galo sheekadaas marka socota wararkaas marka waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa saacadihii la soo dhaafay soo kordhay bariga dhexe haddaba wixii kale akhbaar soo kordha waan idin soo ururin doonaa barnaamijyada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa la gareey oo share gareey barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd Jimco kanaalkeena kale ama channelkeena YouTube-ka ee la yiraahdo qisooyinka nadaara laba waxaan soo gelinay qisadii aad nooga barateen dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ay ka daawan karaan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo